Sheikh Xabiib ayaa gabi ahaanba waxa uu shaaciyay inuu fankii ka baxay waxa uuna sidoo kale raaciyay inuu ku biiray majmaca tabliiq. Haddaba fanaanka Sheikh Xabiib oo Soomaalidu inta badan aad u garanaysa ayaa waxaynu la sameynay xiriir si aan uga wareysano qisada ka dambeysay inuu gabi ahaanba fanka joojiyo. Sheikh Xabiib ayaa naga codsaday inaan codkiisa bulshada la wadaagin, balse waxa uu sidoo kale noo raaciyay qisadeeda bulshada la wadaaga si ay cibro qaadasho ugu noqoto fanaaniinta iminka fanka ku jiro iyo sidoo kale kuwa doonaya inay mar fanaan noqdaan. Qisadan xanuunka badan ayaa waxa ay ka bilaabanaysaa sidan. Sheikh Xabiib ayaa waxa uu sheegay inuu ku tala jiro duubista hees cusub taasoo ugu talagalay 2020ka. waxa uuna inoo sheegay inta badan heesaha uu qaado inuu isagu ka fikiro muuqaaladooda qaabka ay noqonayaan, maadaama aan jeclaan jiray buu yeeray inaan viewers badan ka helo heesahiga. Haddaba Sheikh Xabiib ayaa waxa uu yiri anigu inta badan waxaan waqtigay ku qaadan jiray sidii aan u raadin lahaa hees cusub. Haddii aan hees helana waxaan u raadin lahaa sidaan heestaas kaga dhigi lahaa mid qarxada oo ay dad badan daawadaan. Sidaan wada ogsoonahay fanaaniintu haddii ay hees qaadaan waxa ay ku daraan sidoo kale in ay iska soo duubaan muuqaal. Haddaba Sheikh Xabiib ayaa waxa uu ku jira diyaarinta muuqaalkan, waxa uuna sheegay inuu qorayay maalinba maalinta ka dambeeydo sida uu noqon lahaa muuqaalkan. Haddaba waxaa dhacday in habeenada kamid ah waliba xilli dambe oo ay saacadu ahayd 6 saac habeenimo inaan ku gaaray internetka, waxaana markaan internetka iska sii xiliyay ku soo dhacday qayb kamid ah kilibka heesta oo aan ka fikirayay inaan ku duubo meel uu magaceeda noogu sheegay inay beer ahayd. Haddaba anigoo sidaa ku fikirayay ayaan qoray, waxaan ku qoray mobilkayga notekiisa si aan u diyaariyo oo aan meeshaas u tago biri una soo qiimeeyo. maxaa yeelay haddii aan seexdo waxa laga yaabaa inaan kala ilaabo. Qorshaha ayaan ku darsaday waana qortay. Haddaba waa aan seexday anigoo niyadeeda midaas ay ku jirto. Waxa uu noo sheegay fanaanka Sheikh Xabiib in habeenkaas isla joogin dhalinyaro, waxa uu na sheegay guriga in la degan yihiin dhalinyaro asxaab ay yihiin kuwaas oo ay bahwadaag ku yihiin fanka. hase yeeshee waxa uu sheegay habeenkaas qolka waxa la seexan jiray wiil, halkii wiilna waa u maqnaa. Waxa uu sheegay fildiga ay degan yihiin dhalinyaro badan ku joogeen balse qolkiisa isaga hal wiil kaliya oo la seexan jiray. Haddaba wiilkii ayaa habeenka maqnaa, waxaana iska muuqatay in riyadan lala doonayay fanaanka. waxa uuna baraha bulshada ama facebookiisa ku soo daabacay baqshad uu ku sheegay qofkii Ilaahay hanuun la doonaya inuu Ilaahay isagu gacantiisa ku waafajiyo. waxa uuna inooga bilaabay qisada halkan, waxaana guda galay buu yiri riyadii. Markii aan riyada guda galay ayaa markii ugu hore waxay riyadayda bilowgeedii ahayd ka fikiritaanka heestii. Haddaba maxaa isbedelay? Waxaa mar qura isbedelay jawgeygii, waxaan dareemay xaalad aad u cabsi badan oo murugo badan kadib markii anigoo idil heestii iyo wixii aan ku duubayba qalbigayga ka baxeen. Waxaanan tagay meel ay ku sugan yihiin dad aanan wajiyadooda garanayn, guryo aanan weligay arkin, buuro iyo sidoo kale geedo waaweyn. meeshaas waxa ay run ahaantii meel aad u cabsi badan. marka qaar waxa maqlayay buu yiri shimbiro iyo wax qalqaylinaya, mana dareemi karin. haddaba anigii dhan waxaan tagay adduun kale, meeshii ayaan ku socdaa, waan cabsanayaa, dad ayaan arkayaa wajigooda ma kala saari karo. haddaba waxaa dhacday in aan sidii ku sii waday socodkaygii. intaa waa lay wadaa oo riyo ahaan ayaan ka socdaa, balse jismigaygii waxa uu joogaa meesha, qalbigayga ayaa la qaaday si loo soo jilciyo oo loo dabciyo. haddaba waxa uu sheegay qisadan waxay ahayd mid murugo leh, jirkayga meel kama dhaqaajin karin, waa lay wato waa lay hogaaminayay. ugu dambeyn sidii aan u sii socday ayaa waxaa la isaaraa meel buur ah. buurtii waa aan fuulayaa, waan ku rafaadayaa, ma kori karo, cagacadaan ayaan ahay, ma socon karo. intaasoo culaysa ayaa isaaran, waxaan ahay ruux aan dhaqaaqi karin. culayska isaaran waxaad moodaa buu yiri in la yiri 5 qofood inta dhabarka lagaaga xiray buurtan kor. sidoo kale ma awoodo inaan meeshaas ka soo dago oo ma dhaqaaqi karo. awoodda kaliya ee aan leeyahay waxa weeye inaan meeshaas koro. waan ku qasbanahay inaan meeshaas koro, waxaana kaliya niyadeeda ku jirto sidaan meesha u kori lahay. haddana waxaa isaaran culays aad u fara badan. waxaa dhacday inaan meeshii koro oo aan buurtii koro. markii aan dhaladeeda tagay ayaa haddana waxaa la yiri ka deg. kadigitaankaas waa ii fududeed oo waxaan uga soo degay si tartiib ah. ugu dambeyn waxaa la ii keenay sidaan u soo socday meel ay taagan yihiin niman dhaadheer oo murqo waaweyn leh, kuwaas xoogooda markii aad fiirido aad is leedahay kuwaani adduunkaba intii aan joogo kuma aan arkin. waana yaabanaa riyadan waxa ay tahay xitaa ma awoodin dhaqdhaqaaq kale inaan sameeyo, kaliya waxaas la ifaraya ayaan sameynayay. waxa uu sheegay in nimankii ay taagnaayeen meel, waxa ayna ku hareereysanaayeen meesha aan taagnaa. anigu meesha dhaxda ah ayaan soo istaagay. kadib waxaa la yiri korkaaga fiiri. markii aan kor fiiriyay waxaan ku arkay buu yiri xarig soo laalaado. waxaa la yiri qoorta ayaad gashanaysaa, dabadeed markii qoorta lagu geliyo ayaa halkaas madaxa ah laga surayaa. waxa aadna ku qasban tahay kursiga lagu dhigaa, kursigaas waa laga bixinayaa. waxa igu yiraahdeen buu yiri maanta waa maalintaadii kugu dambeeyay adduunka, halkaan ayaa lagu gelinayaa, wayna ka idlaatay nolosha, ee is dhiib ee meeshaan tag.
anigii waxba ma awoodo waxaan ku qasbanahay buu yidhi inaan kursigii meesha yaallay koro. Dabadeed waxa uu yidhi qoorta ayaa waxaa la ii geliyey xariggii. Isla markii aan qoorta xarigga la galay waxa ay tuureen buu yidhi kursigii. Dabadeed anigii meesha ayaan jiq ka soo dhahay. Markii aan meesha jiq ka soo dhahay ayaan waxaan la soo booday qaylo aad u weyn. waxaana gabi ahaanba dareemay dadkii xataa deriska ilaahay gurigii qolkii ila jiifay dhalinyaradu way soo galeen. FJ maxaa kugu dhacay ilaahan? Aniga waan naxsanahay, aniga oo weerarsan oo jahawareersan dhalinyarada dhan baa isku soo baxeen, way ii imaadeen maxaa kugu dhacay. Saacada kadib waxaan uga warbixiyay arrintaydii. Dabadeed habeenkii intii hurdada iga dhimaneed xitaa maan seexan, waxaan tukaday salaadaydii. Markii aan salaadii tukaday baan ducaystay, waxa aanan dareemay oo qalbigaygu dareemay in waxaan la i tusinayay ay tahay wax aniga maanta cibro qaadasho la iga dhigayo oo adduunka dushiisa baa la igu tusay xanuunka ay iska leedahay qiyaamaha iyo sidoo kale haddii aad adduunka dushiisa wax qaldan ku sameyso hadhow in laga jaa-iseynayo. waxaan go'aansaday inaan gabi ahaanba fanki isaga baxo. waxaana agteeda deganaay masaajid ay lahaayeen wadaadada tabliiqa. waxa aana u tagay maalintii, waxaana u sheegay arrinteyda u warbixiyay. dabadeed waxa ay yiraahdeen anagu diyaar ayaan kula nahay, waan kuu nasiixahaynaa walaalo, inagana raac oo sidoo kaleete xaqan iyo diinta aan faafihayna nala faafi. hadda waxa aan go'aansaday buu yiri inaan majmacaas ku biiro, inta nolosheeda ka dhimanay aan ku talagalo sidii aan diinta u faafi lahay oo aan u garab istaagi lahay diinta iyo xaq Ilaahay. waxa uu sheegay gabi ahaanba dadkii Soomaaliyeed heesiisa dhageysan jiray inay iska dileed galayaan. waxa uu sheegay inta user ee YouTube-ka uu ka leeyahay isagoo heesiisa soo gelin jiray inuu ka saaray. waxa uu ka codsaday dadka Soomaaliyeed heesiisa qaatay inay iyaguna ka bixiyaan YouTube-da. sidoo kale waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan dhageysan heesiisa ayna Ilaahay dartiisa ka dhaafaan maadaama isaguba fanka Ilaahay dartiis uu isaga dhaafay. sidoo kale FJ Xabiib waxa uu sheegay inuu baraha bulshada ka faafin doono dacwadda Islaamka. waxa uu sheegay inuu dadka uga nasiixeyn doono xumaanta una fari doono wanaaga. waxa uu fariintan soo dhigay bartiisa Facebook isagoo ku cadeynayo inuu fanki gabi ahaanba ka baxay. waxa uu sheegayaa sababihii ka dambeysay isagoo soo dhigay warqadan dheer uga hadlaya toobadiisa. haddaba daawada waxaan idinka rajeynayaa inaad arrintan ku cibro qaadan doontaan. waxaana fanaaniinta Soomaaliyeed ee fanka iman ku jira kula talinaynaa in sida wiilkan oo kale dhalinyarada ah ay fanka isaga baxaan. geeridu markasta way ku dhowdahay. waxaana kula dardaarmaynaa fanaaniinta inay fankan ka joogsadaan, gabi ahaanba ay fanka isaga baxaan maadaama fanku uu yahay wax laga wanaagsan yahay. waxaan u rajeynaynaa sida FJ Xabiib oo kale inay fanka isaga baxaan. sidoo kale fanaaniinta waxaan leenahay in hees la qaada xitaa waxa ka dambi badan inaad muuqaalo qabab darro ah oo gabdho qaqaawan ah ku soo bandhigto. taas ayaa waxay tahay dambi labaad. FJ Xabiib waxa uu sheegay inuu ahaa fanaaniinta ugu adag ee dhanka ku dhaqaaqa si heesiisa ay u noqdaan kuwa shidan. haddaba fanaaniinta waxaan kula dardaarmaynaa xitaa haddii aysan heesaha joojinayn inay muuqaalada qaqaawan ee gabdhaha ay joojiyaan, taasoo ah wax xun oo laga fiican yahay indhaha dadkana aan u roonayn. iyagana haddii hataa ay taageero ku raadinayaan aysan taageero ku helin, bal dad badan ee ku taageeri jiray inay taageerahaadii kala laabanayno. sidaan wada ogsoonahay waxaa fanka asaguna ka baxay bishii hore fanaanka Qoomaal oo muddo dheer fanka ku jiray, waxaana soo badanaya fanaaniinta fanka ka baxaydo. sidoo kale isaguna waxaa fanka isaga baxay Axmed Biif oo hadda kitaab ku raacda magaalada Muqdisho, qaasatan deegaanka Ceylasha. waxa uu noqday sheekh faafiya diinta Islaamka. haddaba sidoo kale waxaanu kula taliyaynaa dhalinyarada fanaaniinta ah in ay fanka isaga baxaan intay dhalinyar yihiin oo ay cibaadada xaggeeda u leexdaan maadaama fanku uu yahay